isu imaatanka goobaha lagu shaaho fadhi ku dirada iyo wadaraacida gaadiidka dadweynaha ee BL-ka iyadoo aan la adeegsanayn af iyo sandhowrka ka hortaga xanuunada faafa ayaa u muuqda kuwa aan ka jawaabin digniinaha bahda caafimaadka talooyinka aan kala go'o lahayn ee bahda caafimaadka kuna wajahan khatarta caabuqa coronavirus ayaan cabsi ku hayn bulshada marka loo eego hab tacaamulkooda oo aysan waxba ka bedelin talooyinkan inta badan dhaqaatiirta ay bixiyaan bahda caafimaadka ay bixiyaan dadka ma qaataan waxaad arkaysaa wali dadka salaanti way wadaan waxaa taas kaaga sii daran xabadka la saarayo waxaa taa kaaga sii daran bukaanada isbitaalada lagu booqanayo ayagoo qufacayo waxaa taas kaaga sii daran ayadoo baabuurta la saarayaan dadka wali hindhisayaan oo wali xataa qofka uusan ka dadbanaynin waxaa taas kaaga sii daran ninkii qufacay ama gabadhii qufacaysa inay qofka kale saaxiibkeed ama qaraabadaha ay salaamayso kadib ku dhawaaqidii dowladda dhexe kiiskii ugu horeeyay ee corona in laga helay gudaha dalka waxa uu ra'iisul wasaare Khayre ku dhawaaqay in la xiro xarumaha waxbarasho lana joojiyo dhammaan munaasabadaha iyo xafladaha kulmin kala dadweyga si marka aan uga hortagno cudurkan waxna caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta bari ah oo ay xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraad ah dawladda Soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojino waxaa dhaqan galay amarkii balse dhanka kale waxaa la moodaa in sidii hore iyo ka badanba loo dhooban yahay goobaha dadku isugu yimaadaan sida maqaayadaha hoteelada goobaha dalxiiska iyo dhammaan goobaha lagu shaho oo lagu daray gawaarida BL-ka taasoo muujinaysa in xirnaashihii dhan kale looga faa'iideysanayo Dr. Mustafa Maxamed Cabdiraxmaan ayaan weydiinay waxa loo gudboonaan kara shacabka iyo xukuumadda si taxadarka loo kordhiyo dawladda waxa la gudboon in ay ziyaadiso wacyigelinta iyo amarada way soo saartay laakiin dabagalkoodii inay ziyaadiso jaamacadaha iyo iskuulada way qaateen amarkii la soo saaray arday dhigta hadda jaamacad ma jiro iskuulna inta badan ma jiro wax brevet hadii laga reebo laakiin waxa furan suuqyadii haday mid furan yihiin isku mid waa in iskuul laga tago iyo in la joogo marka bulshada waxa looga baahan yahay in taxadir dheeri ah ay sameeyaan gacmaha dhiqada haday ahaan lahayd hadii qofkii laga shakiyo oo si degdeg ah isbitaalada iyo goobaha caafimaadka u raadsan lahaa in taxadir dheeri ah la muujiyo agabka looga gashaanto xanuunada faafa iyo jeermiska helidiisa ayaa ka bulsho ahaan inoo sahlanayn waxaase jira dadaallo aan burnayn oo ay sameeyeen shakhsiyaad leh hal abuur ganacsi kuwaasoo isu howlay fulinta habraaca talooyinka bahda caafimaadka kadibna soo saaray af iyo sandhowr iyo jeermis dile badbaado u noqon kara ruux kasta maamo Cudbi Cumar waa maamulaha xarun lagu magacaabo Mudan Multifactory maadaama anaga aan nadaafadii qaabilsanahay waxaan garanay in aan sameeyno jeermis dilayaal ku gacanta lagu qaadan karo oo boorsada la gashan karo oo saan oo kaleeto saasa loogu maxaa la dhahaa gacmaha lagu tirtiranaya markaadan xafiis iyo biyo uma baahno qofkii marka isagana waa sameeynay asagoo yar yar asagoo dadka qaarkoodna waxay gadan karaan kanoo kaleeto qofkii xafiis oo laba qof ka shaqeysa haduu gato haddana kanuu gadan karaa oo 1 litir ah markuu ka dhamaadona uu ku shubanaya waxaan sameeynay geedahan oo afka lagu xirto waa arkaysaa ma rabo inaan taabto sababtoo dada iskale afka lagu xirtaa qiimo jaban intaan ku suubinay oo si looga hortago dadka neeftooda isgaaraysa iyo sidoo ku faafayo jeermiska waa in prevention ahaan u sameeynay asoo mariyana waa sameeynay dad oo qofkii marada ka helaayo fariimaha wasaaradda caafimaadka ayaa ah kuwa isdaba joog ah balse hab dhaqanka guud ee bulshadeena ayaan laga dareemin walwal iyo cabsi Dr. Cawaale Maxamed ayaa sidan ku talinaya talooyinka ugu badan caafimaadka bixin xitaa qofka inuu isolation ama kaligiis uu isxaandaabo qolkiisa kaligiis uu joogo raashinkiisa cuntadiisa iyo wixiisa oo san dadka kale contact uusan la sameeynin waxa ugu muhiimsan qofka inuu sameeyo taas ugu muhiimsan laba waxa kale ka sii muhiimsan inuu qofka hadii cudurka qabo kale inuu dadka salaamin contacts oo ay kamid tahay sida waraaqaha la isdhaafsanayo dokumentiyada la isdhaafsanayo salaanta
mucaanaqada oo inta badan dadka waalidka ama dadka asxaabta isku dhow waliba Soomaalideena waxa waa inta badan xabadka la saaraa gacmihiya dhabarka iyo qoorta iyo meelahaas oo dhan la soo saaraya soo waxaas oo dhan in laga wada fogaado tan ugu muhiimsan taas waa tan saddexaad ugu muhiimsan waxay tahay waliba labadii usbuuc ugu dambeysay campaign caan oo WHO ama hay'adda caalamiga adduunka iyo dadka caanka ah ay sameynayeen oo ah hand washing oo in gacmaha qofku iska meero waliba asagoo isticmaalayo chlorhexidine ama maxaa la yiraahdaa antiseptic solution isticmaalayo uu faraha si fiican u meerto xanuunka coronavirus wuxuu soo ifbaxay bishii December ee sanadkii tagay laakiin durubaba dunida oo dhan ayuu ku faafay waxa uu galaaftay nolosha kumanaan ruux xaqiijinta kiiskii labaad ee coronavirus ee dowladda Soomaaliya waxay muujinaysaa in tiradu halkeeda aysan joogeyn haddana taxaddar dheeraad ah la sameeynin ha yeeshee inaan ku labqowsano qadarta waa mid jirta inkastoo dadaalku uusan reebaneen haddana waxaa muhiim ah inaan raacno talooyinka takhaatiirta si uusan u faafin caabuqan